kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadka dhacdooyinka. Barnaamijka waxaan ku eegi doonaa uumiga biyaha ayaa laga helay Ganymede oo ka mid ah dayaxa ugu weyn ee Jupiter. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Machadka Telescope Space ee NASA, cirbixiyaasha ka tirsan Machadka Farsamada ee Stockholm ayaa ogaaday markii ugu horeysay caddeen uumiga biyaha ah ee ku jira jawiga dayaxa Jupiter Ganymede. saynis yahanadu waxay rajeynayaan inay go'aamiyaan sida jawiga uu samaysmay dayaxa Jupiter. qoraalka ay soo saartay Machadka Sayniska Telescope Space ayaa sheegay inay jiraan cilmi baaris hore oo la sameeyay si loo ogaado biyaha dayaxa Jupiter Ganymede. waxa ay tilmaamtay in Ganymede uu ka kooban yahay biyo ka badan dhammaan badaha dhulka oo dhan, inkastoo uu dayaxu 2.4 jeer ka yar yahay meeraheena. bayaanku wuxuu intaasi ku daray in Ganymede uu aad u qabow yahay iyadoo heerkulku uu gaaray 184 digrii Celsius. dusha sare wuxuu ka noqday biyo barafoobay. barnaamijka dabagalka si loo soo bandhigo caddeymo cusub oo ku saabsan dayaxa Jupiter Ganymede oo ka tirsan Machadka Farsamada Royal ee Stockholm ee dalka Sweden ayaa baaray Hubble 20kii sano ee la soo dhaafay. sawiradan markii la falanqeeyay waxa ay daaha ka qaadeen in jawiga dayaxa ka kooban yahay ions iyo oxygen aad u badan. saynis yahanadu waxay u qaateen inay ka yimaadeen molecules biyo ah oo u muuqda natiijada iftiinka qoraxda barafka Ganymede. saynis yahanadu waxay isbarbar dhigeen sawirada kuwii Hubble qaaday sanadii hore, waxayna awoodeen inay ka helaan khadadka biyaha ee muuqaalka Ganymede. iyadoo falanqayntan lagu sameeyay waxay awoodeen inay qiimeeyaan cufnaanta biyaha jawigeeda. sidoo kale waxay cabbireen xaddiga atomiga oksijiinta.